aad baa idin salaamaya walaalayaal. Maanta waxaan rabaa video yar oo fiidiyada hore ku duwan inaan kula wadaago. Bahalkan ayaan dalbaday oo la yiraahdo magaciisa waxaa la earphones. Bahalkan wuxuu yahay haddii timaha garhka iyo meelaha yaryar ay kaa soo baxaan oo markastaba aad iska yacni cagafta ama sikiinadu ay si fiican kaaga jari waydo max remover. waad aragteen badankiina raislayaasha wax dadka lagu dhijinayo oo saa looga soo fujinayo deetana timaha kasoo fuqaya weyaan max remover baa la yidhaha. Marka haddii garhkaaga uu isku sinaay ama inamada la hadlaya badana habluhuna siyaabo kale u isticmaalaan xaadis kaga jiraan waxaa, laakiin inamadu haddii garhkoodu oo yani hareeraha kasoo baxbaxo oo in tusaale ahaan dhexda bannaan tahay dhinacyada kasoo kala baxbaxaan badanaa waxay isticmaalaan cagaf ama baashan garhka lagu jaro, taasoo run ahaantii kuu fiicnayn. maxaa yeele haddii aad jarto waxaa laga yaabaa inay kolba dhinac ka jarto ay soo wada saari, laakiin baashan hal mar baad garhka iyo ama xagga hoose badanaa inta hoose ka hooseysa daanka hal mar baad sidaa ugu dhijinaysaa deetana waad iska fujinaysaa. markaad fujiso timihii oo dhan hal mar bay ka wada baxayaan meesha, hadhowna timo caadiya garhka kaaga soo baxayaan dhinacyada. inkastoo imika dee la hormaro xataa garhkii haddii kala dheer yahay lasoo sidii timihii loo beerto oo kale garhkina loo beerto, laakiin taasi qarash iyo waxa weeye hawl kale. marka adigu waxa ilaahay ku siiyo ku qanacsano muhiimad weeyaan. marka waxaad samayn kartaa kanaad isticmaalaysaa kadibna bal iminka sida loo isticmaalaya ayaan rabnaa inaan kula sharaxo, bal aynu furfurno. iminka waxaan joogaa suuliga, bal halkaas bay dhigaynaa way furfuraynaa, bal wayna eegaynaa waxa ku jira weli ma furin. Okay, kartoonkii sida baybka u furay. baashan waxa weeyaan baasha marka muxuu ahaa baasha lagu shubo dabeetana lagu eego sidee tahay hadhow wayn tusi doonaa. aan laftarkeyga ma garanay laakiin youtube-kan ka eegay. kuwan waxa weeye baashii lagu shubaya kalarkan buluugna maahan waa wax kale. xabuubkan tanna kalena way wadataa, maxaa ku qoran 14 fine hair ana wadataa. waxani waxa weeye xabuubkii lagu shubayay taasna wadataa sidoo kale, tanna sidoo kale wadataa. okay wuxuu waa waxan yar weeye mashiinka wax hagaajiya soo saarno. adigu wuxuu eegayaa waxaan sidii kululeyso oo kale weeye. okay laba kartoon xaga naga dhig oo kaa baalki yaraa bahaladiisina waa kan lagu shubayay. kale information xaggan bay ku qoran yihiin sida loo isticmaalayo, waad arkaysaa sida loo isticmaalayo. kan luqadana waa maxay English. okay English wada garanaysaa. okay marka ugu horeysa wuxuu kugu yidhaahday step 1 dugu bahasha yar baa lagu shubayaa halkan baa lagu shubayaa saad arkaysaa step 1. dabadeetana step 2 bahalkan yar baa la soo saarayaa oo lagu tijaabinayaa inay diyaar tahay. step 3 meeshii xaadda ama garhka timuhu kaaga yeelan barqoosaa. step 4 ama step 4 waad ka remove garaynaysaa. okay haddaba bal aynu isku tijaabino waxaan wax shaqeynayay oo funny. haddaba waxaan sameynaynaa waxaan u baahanahay fish u baahanahay saalaan kanoo kale ku shubaynaa. bal kaadiyaan kamarada meel dhige siduu ugu shubay. okay waa waxan talo meen badiyo talo home remedy waa la idhahdaa. talo waxaan buranaa jibinaa balan eegina waxani waxa weeye sidii wax yar xanjoo kale weeye. markay sidaa tahay fish ban gashanayna deetana
inkasta aanan gar fiican aan ku jara lahayn aan ku dhajiyo laakiin bal weyn eegi maxaa adduun ku eegi ama wuxun baynu ku eegi okay fishta wataasi way iga yar fogtay marka waxaan noqonaysaa halkan saaro asxaabi suul suuligan joogaa tana kan ugu daboolyan malaynayaa okay steed doosiga so wixii waa inagaa shidnay tana ma shidnay may waxaan sameynaynaa haddana okay imika off buu taagay wadarkasa off bal baynu eegaynaa waxaan geynaynaa waxaa ku qoran arkaysaa 120 baan keenaynaa max 120 arkaysaa soomaa 120 way ka warkeynaa bal marka intaan sameyno waxaan leedana bahal dheer soo qaado saad u aragtaan 150 baan geliyey tirada hoos loo socotaa be maanta bad baan galay markaasaa bal weyneyna sii wuxuu soo diray walaa bal yirideena xoogaa waqti bay qaadanaysaa malaynaya bal sugayno akhri buuggii waqtiga intay qaadanaysa Jarmalka Deutsch Englishka badanka fahmaysaan wuxuu dhahay put the light apply liquid wax into treatment please take even the direction to hair growth maya intay qaadanaysa oo baan walaa waqtiga kuma qorno apply this pain cause and difficult to clear clip the hair 1 centimeter when it's too long waqti kuma qornaa bal asxaabi soo ciyaalkayga baa hadlay xoogaas arkaysaan maxaa khadan waxaan soo diraysaa kulaalkii ugu dambeeyay baan geynay max balan eegno so asxaabi hadda soo noqonay balan eegin intii uu sugaynay wuxuu soo noqday eega mana waxaan diyaar maaha armaanta bad baan galay waxyaalaha nagu te waxaan raislayaashan baa lacag qaaliya markaas tiraado waxaa timaha kaaga jaraya soo maa dabeetna waxaa yidhi intaan xanaaqay ma adugu samaysid arkaysaa wax soo noqday anugu ma garanayo dee waxaan youtube-kun baan ka arkay iminka marka waxaan u malaynaya weligiisan diyaar ahayn sug bal dabkan ka yar gaabee walaa dabkan ku dheeriyey okay bal been yar sugaynaa maxaa yeelay intiisan macquul maaha waxay ku sameeyeen iyagu way shiilaa malaa wax sidii bariiskan u karanaay iminkan kusoo noqonay dabkan ku yara daayay oo kaa sidaasuu noqday tolom inuu diyaariyin kara ma garanayo youtube-kana mar kale ka eegay noqonaysaa sababta waxaan usoo qaatay waxay ahayd raislayaasha haddaad u tagtad marka timaa lagaa xiray hadday timaa yara harare kaa soo baxay kaa jarayaan waxay kaaga dhijinayaan deetana lacag qaaliya kaa qaadayaan sidaa darteed baan siri bal aadnimaad guriga keysantidood eegtid bal
وأركز أروح ساسو نقضي أنا وأقول مليه لكن بل دبكن وانكرنا قصي وحير بل بنسوق يا سيد النقضة الحين كنت شابنا ديتنا تماهي حياتنا كنت شابنا قعنتها حوغا إمكا دقيقتين يرسوقنا بل سوق صابحه حوغا يرد بولنا هدنا مركله أوكي إمكا انت هربان سيدا let me check deetana siday ku soo baxdo aalada xaggeena dhigo okay okay 9 wuxuu inuu diyaar yahay waan u malaynayaa sug balan kasoo jara dabe dabka yaraagaan u malaynayaa kee baa ga socdaa qaadane halkee baa la qabtaa so the moment of the truth baa la odhan jiray xaaladii runta الله يا شايس حواكن عمري عايد وما ركتان ماشي بدو بنغطي حواكاس ساسو نقضي ساسو نقضي مينش الله قوي هربط بان كلمانتي ساسو نقضي ساسو يقول دقيقة أروح أنا وحكر قرشاري معي ديتنا حالة سمينيها باي كيك والله وكا وشقينا ونكو قوليسني inamada badan raislayaashu dhibeenow de waa kaas sawirkooda ku soo sawiraya ay waxa sameeyaan talbada waa kaas anigu de waa kaan ku guuleystay waan karinay waa ka aad u shaqeynaya aad bay islaamiya video duu ku qanciyay subscribe channel-ka noo saar ma santahay aan ku salaamay